Madaxweynaha China ayaa markii ugu horeysay ka hadlay Xi Jinping dagaalka ka socda Ukraine iyo Russia, isla markaana madaxweynaha ayaa si dabacsan u yiri waxaan ugu baaqaynaa labada dhinac inay isxakameeyaan isla markaana yareeyaan colaadda. Dhanka kale, waxaa jira shir ay yeelanayaan dowladda China, Faransiiska iyo Germany, taasoo looga arrinsanayay sida xal waara loogu heli lahaa colaadda isla markaana xabad joojin loo dhex dhigi lahaa dagaalka sii xoogaysanaya oo suurtagal ay tahay inuu ku baaho dalka Yurub. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ugu baaqay China inuu door lixaad leh ka qaato maadaama uu yahay waddan ka mid ah qaramada midoobay isla markaana la codka fiitooga. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku booriyay in lagama maarmaan ay u tahay China doorkiisa. Dhanka kale, Russia iyo China ayaa waxay leeyihiin xidhiidh aad u wanaagsan, kaasoo marba marka ka dambeeya sii xoogaysanayay, isla markaana ay labada dal u muuqdeen in ay xidhiidhkoodu sii xoogaysanayaan saacadba saacada ka dambeyso. China ayaan marnaba cambaareen isla markaana dagaalka Ukraine ku soo qaaday Ruushka. Wuxuu dhanka kale ee jira dadaallo fara badan oo loogu baaqayo dalka China inuu door dhexdhexaadin ah ka qaato. Dhanka kale, madaxweynaha China iyo madaxweynaha Russia ayaa ciyaarihii Olombika markay ku kulmeen waxay sheegeen in ay labada dal yeelanayaan xiriir dhaqaale iyo xiriir diblomaasiyadeed taasoo aan la soo koobi karin, isla markaana u horseedaysa labada dalba barwaaqayn iyo iskaashi caalami ah, taasoo laga wada hadlayo dhanka wadajirkooda. Dhanka kale, shir ay isugu yimaadeen qaramada midoobay ayaan lagu cambaareen, isla markaana China uu ka aamusay. Dhanka kale, agaasimaha hay'adda sirdoonka William Burns ayaa sheegay in China uu ka gaabiyay doorkii uu ka qaadan lahaa colaadda ka holcaysa Ukraine, isla markaana ay jiraan khasaare fara badan oo loo geystay shacabka reer Ukraine. Dagaalkan oo u muuqdo dagaal suurtagal ay tahay inuu ku baaho wadamada qaaradda ama sabababa dagaalweyne saddexaad. Dhanka kale, waxa uu sheegay in ay China xidhiidhkoodii diblomaasiyadeed ay sii kordhinayaan ay la leeyihiin Ruushka, isla markaana aysan doonayn inay cambaarayaan. Hase yeeshee, madaxweynaha Faransiiska iyo madaxweynaha China iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa wadajir waxay ugu baaqeen in ay isxakamayso Russia.